السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفت أركي سامة ولاشنا مال ديما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. 2021 wuxuu noqday sanad rajo wanaagsan leh oo ay soo hanuuneen dad badan oo wada khaldan ku socday fanaaniin iyo dad kale oo baraha bulshada caanka ah ayaana iska dhaafay waxyaabihii uusan alle raalida ka ahayn. Amal Diamond oo ah gabar caanka ah baraha bulshada isla markaana ku socotay wada khaldan ayaa gabi ahaanba joojisay waxa ayna sheegtay in la tusiriyo naxdin leh oo kaliftay inay soo hanuunto. Haddaba inta aan u guda galin barnaamijka muuqaalkan like saar like-tu waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin iyo inuu muuqaalkani meel fog gaaro adigana wax dhiba kuguma hayso. Haddaba adoo raaliya fadlan muuqaalka like noo saar siina share garee oo asxaabtaada la wadaag. Mahadsanida. Amal Diamond oo ah gabar Soomaaliyeed oo si weyn ay u garanayaan dadka baraha bulshada ayaa shaacisay inay gabi ahaanba ka hartay wadadii khaldaneed ee ay ku socotay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قفت أركي سامة ولاشنا مال ديما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. gabadhan ayaa iyadoo qaawan isa soo dhigi jirtay baraha xiriirka bulshada oo ay ku leedahay taageerayaal badan. TikTok ay isa soo dhigi jirtay muuqaalo iyadoo aan asturnayn isla markaana qofka ciyaaraysa. Sidoo kale Instagram ko ay ku leedahay dad gaaraya 225,000 oo qof ay live ka soo gali jirtay isla markaana ay ku caayi jiray hadba qofka ay markaasi dirirtu ka dhaxayso. Haddaba gabadhii caynkaas ahayd ayaa ku dhawaaqday inay joojisay arrimahaas waxayna si gaar ah ila wadaagtay riyo la tusay habeenada kamid ah waxa ayna hadalkeeda ku bilowday waxaan ahaa qof inta badan dhafarto oo isticmaalka internetka ku gaadhay xilli dambe habeenada kamid ah ayaan ka imi xaflad aroos anigoo daalan ayaan guriga imi oo waa iska seexday anigoo hurdadu meel fiican ii marayso oo ku jira saq dhexe ayaan arkay waxaan aad uga argagaxay waxa la i tusay anigoo dhintay isla markaana la i weydiinayo su'aalo ay kamid yihiin maxaad isu qaawin jirtay markaad adduunyadii joogtay aniguna kama jawaabi karo waxa tir waan argagaxay oo hurdadii ayaan ka salalay isla markaana intaan soo weesaystay oo laba ragco tukaday ayaan Ilaahay bariyay isla markaana waxaan go'aansaday inaan is asturo isla markaana aan noqdo qof hanuunsan oo iska dhaafta xumaantii ay ku jirtay maasha Allah. Haddaba gabadhan oo ku nool wadanka Jarmalka ayaa ahayd gabar inta badan waqtigeeda ku qaadatay social media iyadoo qaawan subhanallah balse hanuunka Allah ayaa iska leh wadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Haddaba dad badan oo markii hore ka xumaan jiray waxyaabaha ay sameeyso gabadhan ayaa aad u soo dhaweeyay waxa ayna tani noqonaysaa farxad iyo tusaale ay ku daydaan gabdho badan oo hadda lunsan. Hanuunka Allah ayaa iska leh Ilaahay dhammaanteen hana soo wada hanuuniyo. Haddaba haddii aad dhamaysatay muuqaalkan fadlan fikradaada qaybta hoose commentiga noogu reeb muuqaalkana like saar sidoo kale ku soo biir page-keena Facebook ee Cabdi Fataax Xaaji Dir. Mahadsanida.